madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud mar kale ceeb iyo fadeexad culus ayuu dhexda ka taagan yahay adduunka oo dhan ayaana aad u hadal haya tallaabooyinka uu qaadayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee qar iska tuurnimada Mareykanka wuxuu ka mid yahay dalalka ku maadsanaya wafdigii Congress-ka Mareykanka uu soo diray iyo wafdigii kale ee Africom ka socday waxay tageen Kismaayo Hargeysa iyo Boosaaso ay Siciidani hadda shir kula leeyihiin way diideen inay tagaan Muqdisho ayna la kulmaan Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisu u dhamaaday ceebta kale ee ugu weyn ee Xasan Sheekh uu dhex taagan yahay waa ninkii Soomaaliga ahaa Cabdikariin Iidle oo loo gacan geliyay Mareykanka oo maanta maxkamad New York ku taala la soo taagay Cabdikariin wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed Muqdisho laga qabtay diyaarad loo saaray Mareykanka loona gacan geliyay madaxweynaha Soomaaliya eedeymo waaweyn ayaa markana dul hoganaya haddaba Xasan Sheekh waxa uu ku suntay maxay tahay wafdiga Mareykanka ah baadilka ay ku sameeyeen ee ay diideen inay la kulmaan isaga ee ay Axmedoobe uga bilaabeen ee Cabdiraxmaan Cirro kula kulmeen ee ay hadda Siciidani ula kulansan yihiin ayna diideen inay tagaan Muqdisho waan ku hayaa Cabdikariin iyo kiiskiisa halka uu marayo Trump laftirkiisa xafiiskiisa war weyn ayaa ka soo baxay ninka u qaabilsan diblomaasiyadda ee la yiraahdo strike ama iskale shirkadda Strike Global Diplomacy wuxuu si cad u sheegay in Xasan Sheekh iyo qoyskiisu dabagal lagu sameeyo isla markaana xanibaad iyo xayiraad bala saarayo kadib markii ay lunsadeen canshuuro dadka Mareykanka laga soo ururiyay oo USAID lahayd oo loogu talagalay gargaarka Soomaaliya Xasan Sheekh iyo qoyskiisa lunsaday buu leeyahay haddaba waxaan isla eegaynaa hay'adaas diblomaasiyadeed warka ka soo baxay wiilkan Soomaaliyeed dhibaatada haysata iyo wafdigan ceeb ayuu dhexda ka taagan yahay baa leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud aragtidaada noo reeb like saar muuqaalka saaxiibadana u sii share garee waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa mowduuceena din Soomaaliya oo dacwad ogayaal Mareykan ah ay ku tilmaameen shakhsiga labaad ee ugu awooda badnaa shabakadii musuqmaasuq Feeding Our Future ayaa jimcihii diiday dhammaan eedaha loo haysto kadib markii lagu qabtay oo lagu soo ama kadib markii lagu qabtay Soomaaliya kadibna la horgeeyay ama kadibna loo soo wareejiyay Mareykanka lana horgeeyay maxkamad federaal ninkan magaciisu waa Cabdikariin Cabdullaahi Iidle waa 42 sano jir waxa uu wajahayaa 31 eedood oo ay ku jiraan khiyaano lacageed laaluush la xiriira barnaamijyada dawladda federaalka iyo lacag dhaqista sida ay muujinayaan dukumeentiyada maxkamadda Cabdikariin ayaa ku andacooday inuusan wax dambiya galin isaga oo markii ugu horeysay si rasmi ah ugu jawaabay eedeymaha 16 July markii dib loogu celiyay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka dacwad ogayaasha ayaa ku eedeeyay inuu ka mid ahaa maskaxdii hogaaminaysay qorshe lagu lunsaday ku dhawaad 250 milyan oo dollar oo loogu talagalay in cunto lagu siiyo caruurta danyarta ah xilligii COVID-19 ama coronavirus waxay tilmaameen in Cabdikariin qofka labaad ee ugu sareeyay shabakadaas uu ahaa laakiin waxa la yaab ahayd in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisu ay muwaadinka soo qabteen hay'adda nabad sugidda ayaa ka soo qabatay xaafad lagu magacaabo Galmudug oo ku taala Muqdisho gaar ahaan agagaarka X Control Afgooye ee caasimadda Soomaaliya gurigiisa ayaa loogu dhacay waa la soo qabtay waxaa la geeyay Xalane goobta ay sheeyo degayn ee xamar ku taal waa laga sii qaaday Mareykanka loo gacan geliyay waa sidii qalbi dhagax oo kale muwaadin Soomaaliyeed in la qabto dalkiisa laga masaafuriyo dal kale oo shisheeye loo dhiibo waxay noqotay ceeb iyo ihaano iyo wax runtii aad loogu xumaado oo dadka Soomaaliyeed oo dhan sumcadooda iyo sharafkooda ku ah dhaawac weyn inta markii laga soo tago madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa markii waxa lagu eedeeyay inay ku kaceen fal qiyaano ah oo muwaadinkaasi Soomaaliyeed dhibaato aad u daran loogu geystay waxaana eedaha hadda ugu badan shacabka ay u jeedinayaan Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisu oo sheegeen in Mareykanku ay ka baqayaan isla markaana aysan hadal iska oran karin ama yaa iska dhigi karin waxa la yaab leh marka wafdi uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Major General Kodor JR oo ah diblomaasi iyo sarkaal sare oo Mareykan ka socday in uu la kulmay Axmed Madoobe oo uu la kulmay Cabdiraxmaan Cirro haddana kulan uu la leeyahay Siciidani uuna diiday in uu la kulmo Xasan Sheekh
madaxweynaha Soomaaliya oo dhan mas'uulka ka ah inkastoo waqtigiisa uu dhamaaday oo sharci darro ku joogo sida mucaaradka ay ku eedeynayaan. wararku waxay tilmaamayaan in hadda Siciid Dani magaalada Boosaaso uu kulan kula leeyahay ninkan magaalo xeebeedyo dad kula kulmaya. Cabdiraxmaan Cirro wuxuu kula kulmay magaalada Berbera, Kismaayo wuxuu kula kulmay Axmedoobe, halkanna Boosaaso wuxuu kula kulmay Siciid Dani magaalada Boosaaso. saddex magaalo xeebeed isku maray. waxa uu wato iyo qorshihiisa waa la yaabay ilaa had. booqashada wafdiga Mareykanka ee Boosaaso waxay ku soo beegantay baa la yiri xilli gobolka Geeska Afrika uu wajahayo caqabado amni oo isa soo taraya, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka iyo khataraha ka jira maranbiyoodyada ugu horeeya gacanka cadmeed. waxaa la yiri qorshe kale ayuu damacsan yahay Mareykanka, tallaabooyin isaga u gaar ayuu qaadayaa. Soomaaliyana tani waxay ku tahay baa la yiri dhaawac aad u daran. muxuu yahay xalka Soomaaliya? aragtidaada noo reeb. waa maasantahay saaxiib muuqaalkan ila daawo.